soo dhawow waxaad inoo sheegaysaa xaafadaad ka timid waxaad ku tartamaysid heestaad ku tartamaysid cidda qaada ayaa dabcan inoo sheegaysaa wadaas wandhow ahay magacaygu axmed nuur cabdilaahi waxaan deganahay magaalada jigjiga gaar ahaan xaafadda afraad heestaan ku tartamayana waa hees uu suldaan saraar guhaad bannaankeenna weyn u qaado intaan ma weelin karo nafta waan madadaaliye may markan diiday waroo dhan nafta waan madadaaliye markan diiday waroo dhan intaad maqantad dhirtay urda kumaladaaye mahuraankii noloshaas sowmoogidina tahay meel kastoo xubnahayga ka mida ku tabaya maqnantaada dhibaysa igadaa muddo dheere maalman socda kaalay macankaalay kasamuuqaagtayda intaan samir muujin karo nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadka nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna intaad maqantad dhirtay urda kumaladaaye intaad maqantad dhirtay urda kumaladaaye mahuraankii noloshaas moogidina tahay meel kastoo xubnahayga ka mida ku tabaya maqnantaada dhigaysa axmed nuur waad wanaagsan tahay laakiin waxoogaa cabsiya kugu jirto gariij baa ku jiro codkaada waxaad u baahan tahay tababar kale inaad maaragta soo gashay aniga xaggii waad wanaagsan tahay laakiin sidaa maxaa ku sheegay deganaansho fiirsasho badan ayaa lagaaga baahan yahay anaa waxaa qabaa haddii una baqdintaas ayna ku jirin u fiicnaan lahaa fursad kale ma siinaa si uu hees kale uu codkiisa ugu soo bandhigo fursad kale ayaan jeclaan lahaa inaan ku siino mikrofoonkana gacanta ku qabso cabsidan intaas ka saartid hees kale oo codkaaga ku fiican adoon hadda baqdinta iska saartid heedhe yaa fursadda labaad ka faa'iidaysan karnaa hiboy qaabkaagan iyo quruxda rabbi ku dhashiy weliba qalbigaaga furan ayaa qof waliba dareen kuu shucle ku beera oo qadarin baad mudan tahe hiboy qaabkaagan iyo quruxda rabbi ku dhashiy weliba qalbigaaga furan ayaa qof waliba dareen kuu shucle ku beera oo qadarin baad mudante inaan murtiqaaya badan qaadaa igoonaman khayrkaaba ku dhaafiya jacayl baa igu qasbe inaan murtiqaaya badan qaadaa igoonaman khayrkaaba ku dhaafiya jacayl baa igu qasbe awraartani qaaligaa ku qoro laabtiyo wadnaha hiboy ku qoro laabtiyo wadnaha awraartani qaaligaa ku qoro laabtiyo wadnaha hiboy ku qoro laabtiyo wadnaha hiboy qosolkaaga iyo dabnaha
qaalinkale madowtima kala qaybsane dabaylu u qaadayaan qoraansi jalleecadooda ayaa qirayguunkee axmed nuur waad fiican tahay xaggayga ahaan waa sax maasan tahay axmed nuur anna waan ku saxay iminka aad wanaagsan tahay laakiin ha isdhigan marka hore aad tartamaysid heeska aad codkaaga ku soo baxayo inaad xulatid baa fiican adiga oo baqdintana iska ilaalinaya marxabadi kolley markii igu horreysay insha allah hadda waxaan dareemay in magaranaysaa cod uu kugu jiro aad fiican tahay laakiin baqdin iyo hees aan adiga kugu habboonayn inaad xulatay marka hadda heeskan dambe waad fiican tahay xaggaygana waa haa maasantiin aad bay maasantiin aad baad umahadsantihiin dhinaca sugaanta ama heesa halkaasaan ku joojinaynaa waxaan soo qaban doonaa dhinaca gabayada dhinaca gabayga dhallinyarada ku tartami doonto ayaan soo qaban doonaa maxamed axmed godane ayaan malaynayaa dabcan wiilkaas ayaanu soo dhaweynaynaa sacabay mara lagu soo dhaweeyo waxaan ku tartamahayaa kaalinta gabayga haddii aan xagga heesaha u kici lahaa cigaal iyo waxbaan anagu aynigiisa aad baan idin salaamahaya may heesaha anigu waa iga nabadgelayaan harweynkeenna geeluba markuu hawdka miranayo hareeraha waxay uga socdaan hanadadii raacay kolbatii hadhaaga waxaa loo hitibinayo inuu nabad ku soo wada hoydaa hawsha loo galaye ha yeeshee habeen qudha haddaan maalin hadiyayno hirigga iyo hawdkiyo wuxuu halista jidhaba halba meel waxay soo martuu kala horreeyaba hadhdareerka qaarkii wuxuu hoos ka tiigsadaba hilkuu bahalku joogay waxay qayb iska hadhaaba habqankiisa meelaha wuxuu haaluuf ku eryaaba hadba midaan hadayn buu libaax xanaqa goyaaye hadafkayga caawiyo waxaan hawsha uga jeedo soomaalay habeen iyo dharaar labada hadkooda humaaga u dhaxeeya tihiin oon halgaranayne humaaga u dhaxeeya tihiin oon halgaranayne cadow idin hodaayuu barhkiin dabahulelaaye cadow idin hodayuu barhkiin dabahulelaaye hadanti laga soo gudbiyo hooska lagu guuray hididiiladeenniyo markay guushu soo hoyatay dad hallaynayaa jira midda hoos isaga dhowra warintaan halaag soo mariyo dhibiyo hirtaanyo habaarqabe kuwii hore waxay hadiinba noo geystay hadaanta laga soo gudbiyo hooska lagu guuray warintaan halaag soo mariyo dhibiyo hirtaanyo dadkeennuna hambiyo waxay noqdeen qayb hadhaadiyahe intan heeda daabku siyay noogu hana qaado amaan huruubkeenna maqaanu haldhabalayno hayaankeenna geeddigaasiyaan horay u sii gurro hayb qabiilkiyo intaan dayna hadalkiisa hebel baa sidaa yidhi intaan ruuxna ku habsaamin war intaan bulshada kii habqana hoos wax ugu sheegno
hanti weeye guushuye inaan hanaana weeyaane inay adiga hilka rabtana hubanti weeyaane inay adiga hilka rabtana hubanti weeyaan. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أحمد horta gabyaa oo gabaygii luuqdiisii wata oo gabay ku soo bandhigay gabaygaa soo bandhigtay waa gabay anugu hanti baan odhan lahaa dadka gubaabo dadka wax u taraya ma ahayn oo soomaali oo dhan gubaabinaya halkay u socdaan iyo in ma garanaysaa qabiilka layska dhaafo in waa anu xaggayga waan qaatay 100% maxamed maxamed aad buu u fiican yahay gabay ahaan waxaan odhan karaa waa dhaxalgal baan odhan karaa macnaha fariin culus xambaarsan baan leeyahay aniguna xaggayga aad baad u mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أحمد قذف وحدنا الصوح سوسي قبياقي عنك أها سيد السيد محمد عبد الحسن راقة ومار أمام بلحن عدك قادو في عين لكن أنا قبيق ولا في عين قبيقا إنك ملك سود ديغتي إن كالي هذه يلهوي لكن قبيق هو قبيق حلقة لا أنا كان حقيقة أها aad baad mahadsantihiin gabaygan meel kama soo xiganin xagga qabaan baan u malay inaan isku xafadnahay aad baan salaamaya hadday toole waxay noo xigi doontaa ma garanaysaa in wareegyada dambe mawduuc lagu siiyo oo mawduuca ka soo gabay lagu yidhaahdo ayay noqon doontaa hadda laakiin gabaygaagu waa gabay dhaxalgala waa ku waxtar u yeelan doona insha allah haddii loo soo bandhigo maxaa ahayn ummadda mujtamaca aan rajaynayo wax ka bedeli doono ready waa diyaar insha allah bismillahi kariim. aad buu mahadsan yahay gabayaagaasi waxaan markan u yeedhi doonaa dhinaca majaajilada dabcan barnaamijku qaybo kala duwan buu leeyahay saan hadalka ku sheegnay tiimka walaalaha ayaan dabcan soo dhaweynaynaa markan oo dhinaca majaajilada caan ku ah iyagana hala soo dhaweeyo sacab iyo moraal. marka waxaan ku tartamaynaa waa majaajilo isqalad fahan waaga marka magacayguna waa team brothers besa ula socda. magacaygu waa axmed abubakar maxamed waxaan deganahay shawnool cise waxaanan ku tartamaynaa majaajiliso magaceeda la dhaho isqalad fahan waaga. magacaygu waa khadar cismaan maxamed waxaan ahay tartame ka socda team brothers waxaan deganay xaafadda 7 waxaan ku tartamaynaa majaajilo isqalad fahan waaga soo la socod wanaagsan. ululka amso yaams ululka tii dhashay baan soo karinayo caanaheedii iyo waxeedii oo dhan cirado barta nooga soo baxday iyadna way nooga dhibtay ilmihii naga tagtay amso assalaamu calaykum. calaykum assalaam. ma adigaa doonaya in daarta loo rinjiyeeyo kumaan dalbane yaa soo diray hooyo ululka oo lalaa duurkii baa ilala soo hadlo gabadhaada ay dalbatay ma barnibaa mise waa xaliimada keeya oo lalaa daambur bow ekeed afka uu doldololay sanku isku dunsanaa dibin hoos u dheeriyo cirid adduqs moodina ilaah baa ku dahaaray. taasi waa dadka hoosoo hablaayga maahe qoraxda duur joogtiyo daruur hablaaygu markay dooga marayaana raggu isku dilaaye tii ku soo dirtay raadso dee gurigaagan ku hubaaya ma adigaa dafiraya ku hubaaya ha warada diinoo dibiro qalqaloocee dadkaa fiifiican ha caayin habar yahay dawaco yahay gubatay habar yahay daamanka dheer leh dunida foolxumadeedana adigaa u sababee danta meesha ay keentiyo dalagaan uga beedhe rinjigii la darayiyo ma diyaar baa burishkii wash ow ilaahay afkiisa ma wuxuu ugu abuuray inuu ceeb nagu daaco kanaa shaqadoona waa guddoomiyihii cayde waar iga tag ammaan ku daqroon kaaga daadiya dhiige iga dhaqaaq iga tag
وينو تاي عجوسدي ما ورتك وري عنق يربط iga baxsay إيغا تقوري المسرح كلا تدقني إيغا لتك cilan ku weel cilo أنا صدنا أولك أمس يام سامس أيو هو يوي إيمان أيو أولك أمس أيو أولك أمس يام سامس أولك أمس يامس أنا ينقعت كيسابة أنا سكر ما شغل صدا بالك سوى نقعد تكتاوني niyo arrin baan ugu hayaa arrin هاي سود arrintu waxa weeyaan mad garanaysaa maalin walba waxaad tiraahdaa shib camal la'aan iyo mundo iyo shaqo la'aan baa ahay ها shaqan ku hayaa maanta shaqo شغل محي هاي بالسودة islaanta badarta islaanta ها إسلامتها قرح بدن islaanta waa islaan af Soomaali macaan malab baa ka daayo bilowd yoomkaba ka bislayse orod u tag xamaal beelad bal awadu shaqo doonale ها هاي أيو معوي واحد الإسلام ده أسوح معاه بيسابل تذكر واحد سين سيسيانا ها ما لك صوت المامي ها واحد يقول حمال بير بتاع حمال بير هاي أنا بسوق صوت المامي والله صوت المامي حقولي بارتي سوما حقولي ها حقولي بير واحد تذكر معاه سين سيسي بلنا واكن حقولي سوق أنا كقرن عيات سوق صوت المامي أنا ما كلنا يلمن هنا كلنا وذا بلا عمل كه تيم كينا تيم كورا سوما brothers weey تيم برادرز يا سومالنا ولا لهم سوما team walaalaha يا وياي أنا قرت عاد بدي قنعسن سيوا أذيك الدحى شلابة تايرت شلا أذيك خطر باتاي أذيك أنا وحن عاد بدو في عنتي أذيك لفتك أقول الدلالي سهل دلال nimanka sidoodu kala noqo gudoomiye cayda tahay waad erigii waxaan gudoomiye cayda labadaas waa laba jilaawayaan tiimkiina anigu waan qaatay xaggayga haa weeyaan aad baad u fiican tihiin dhalinyaro yaryar baad tihiin weli meydaan arag macnaha masrax wax lagu jiro iyo habka wax loo jiro inaad macnaha daawataan de media ama warbaahin aad ka daawataan mooyaane aad baad u fiican tihiin xaggayga haa بسم الله الرحمن الرحيم أدب ونكستين لكن أيه وح معان به هاي حوجا ماركتي لكن كي صومالي ماذا ماركتي حوجا يدينتا أيه وح معان به هاي تاسي وح كلا تبدل دونتان شكل أدب في عنتها ويل كان أيه مثلا هنا أدب في عيني هاي لكن عدك أيه كديكو لكن وان قادني أنا جو هذا وحقي وهذا نشدنا هذا شان وريق حق السماحات حقدون إن شاء الله وريق حقنا تن رنجي بتي داي وحنا سوق لنا سوت بنا سوق لنا إن شاء الله ده كل يرجلنا عن قصي قادنا أنا فرحت بيننا تقولي جيم بحنا كوا ميجرنا إن المسرح يستغنوا عن مال أون ملك موقنا ده إنك استون كحرنا هي الله نحرس تجافنا يروي ضدي هراء مسرح على قصو حنشري مركا إن شاء الله تعالى وريق يوريق كتب بينا سيدنا أن يقصني سعيد أو كبلان بان يقصني دونا إن شاء الله تعالى إن شاء الله أنا هرت وحني هوب بيجنا جوها إن بدنا نكون مني إن المسرح سوري استغنوا أون ما شاء الله ضد كان كقصنا مركا إن شاء الله وان أنت ناقصي سيدنا متشلين بدنا هدي لنا وريق اللبان تتنك قروح بدنا وكقصل بدنا إن شاء الله وسونا هدي لنا إن شاء الله والله وح هذا فرحة إن مالنتي نقول رسيت أنا وتد تيك توك أنا سكاي ملا وح كتوبة لكن فرحت بين وقتها ما تينا ميل ده شعب سوري استغنوا عن وح كسر كذي إنه متشاجلسته وح كفر أحسن هاي إن أنتني إنك بدن دلال كي كان سوينا عن قناة ضد لقطة أو دلال كذا سيكودي إن شاء الله سافرتشينا waxaan u yeeri doonaa cabdi bedel ninka ku magacde lagu magacaabo oo ka mid ah dhalinyarada ku tartamaysa dhinaca heesaha barnaamijka Go Talent ama barnaamijka hibada iyo hal abuurka sacabiya muraha lagu soo dhaweeyo cabdi soo dhawow magacaago saddexan heestad ka qayb galaysid fanaanka ama fanaanada cid qaada iyo xaafadeed ka socotid la wadaag garsoorayaasha iyo bulshada daawanaysa barnaamijka waad maasantahay aad iyo aad baad maasantahay أولاً وحنا مهد علنا يا عدي برنامج كان سوى بابوشي مركز لبعض
iyana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oon leeyahay nala eega waxaan hayno garsoorayaasha halkan waxaan doonayaa inaan qaado hees uu lahaa allah u naxariistay axmed yaasiin digfeer fannaankeenii weynaa talabaad waxaan jeclahay heesaan leeyahay inaan ku xujisiiyo haddii wakhtigu uu inoo saamaxo allahu nagacaloy hobalcaana baanahay ku hawla sheegtee hadduu horori qaado aanu hoydo aakhiro hilibkayga maad cuni iga daahantaaqada haygoyn halbowlaha haygu ridin hogsii dheer haddaad tahay qof ilgala kala garahayo maya ifka lama huraanka haddaad hawsha ila qaban aakhiro maxaad heli allahu nagacaloy halyigii ku dhalayo hooyadaa ma nooshahay walaalkaa ma helayaa halkee baanu raacaa allahu nagacaloy xalay baa hurdada baas markii hoyga aan tegay halkay gogoshu ii tiir jacayligu haleelo bal inuu habaar qabo wuxuu yidhi hibaaq timi ku hibasho weeye kolkaasaan hilaabtuun albaabkii haraati allahu nagacaloy halyaygii ku dhalayo hooyadaa ma nooshahay walaalkaa ma helayaa halkee baanu raacaa allahu nagacaloy hees kale bal isku day hees kale isku day yaa hees kale oon leeyahay mise hees ay fanaaniinta kale leeyihiin adigu hadda tan waxaa lahaa digfeer allah u naxariista soo maaha axmed yaasiin digfeer ahaa aad iyo aad tan aniga xaggayga mayay kaa noqonaysaa marka waxa weeyaan waxaan doonaynaa maaragtay inaad sax tahay in kale mid kale bal isku day bal ammaanoy ku bixin waayey ammaanoy ku bixin waayey ammaanoy ku bixin waayey abaalow ku gudi waayey aqooney ku baran waayey axadiyow ku lumi waayey eedeeyey ku sidii waayey eexaay ku fali waayey afeefeeyey ku mari waayey adduunyoy ku qaban waayey adduunyoy ku qaban waayey samirow ku aaminey iimaanku waasadee samirow ku aaminey amarow ku filan waayey ajaley ku celin waayey arriney ku goyn waayey axadiyow ku lumi okay hadda waad wanaagsan tahay laakiin weli waxaa ku haray tartanba kale teembada iyo tumbugudda ayaad lehaysi doontaa marka soo dadaal iminka caawo aniga xaggayga waa ahaa adig بدل سماه عبد بدل سماه عبد بدل أنا حقيقة واحد إمكا عبدي بطفي عنتاي لكن ددال بتصمين إن شاء الله لكن نتنعاوى عبد بدل وريق الدنبي وحلقة قبها هي تنبا لغوية سيدونا إن هذا تسكسو ديارسو تنبض الراعيتان كيدي موسيقى بقى تنبين دونا مركا حاجة إن عاوة هاويا لكن تدار سو سمين واتاد بوماسين هاي عبد بدل وطبعا هي سكر دوان هيستي ديكفير عبد الله يوسف هانوني هي سيسي ميت كميد قاضي طبعا نتيجتنا وحان فيلنا ان تلوين كلوسو تشيدين اسبوع دنبي واسكا سيخي دونو
horeyn waxaan ku bilaabayaa magacayga waxa weeyaan cabdirasaaq cajab sheekh xasan waxaan ka imaaday xaafadda sideedaad tartankan waxaan u arkaa inuu tartan yahay dhiirigelinaya dhalinyarada waana ku faraxsanahay caawa halkan waxaan la imaaday maanso jiifta ah oo 9 shaqaley ah ama 10 shaqaley ah anoo raacaya xeerkii gaariye waliba anoo fiirinaya dhinaca dhererka miisaanka iyo qaafiyadaba maansadeedan waxay mataqaanaa ka hadlaysaa ka turjumaysaa bulshada waxayna la hadlaysaa ama ammaanaysaa ama bogaadinaysaa dhammaan dadka xilka u haya deegaankeenan hadduu noqdo madaxweynaheena sharafta leh hadduu yahay macallimiinteenna ama barayaasheenna ama hadday yihiin guddidani hor fadhida ay sharafta leh maansadeedan ciwaankeedu waxa weeyaan waan idiin bognay waxaan ka wadaa macnaha aad baan ugu bogsanahay see u wadaan madaxdeena wax sidanay ku bilaamaysaa madaxweynaheenna aan baranno hadda wuu qalmaa booskaas ballantiisina oofi bal mar kalena aan dooranno barayaashaan u ducayn allaha barakeeyo dunida duco kaga baxa bulshadii waa faraxdee baratayna cilmigeenni bara dhaaftay qayrkeede waxay u qalantaa bilade idinkaana bixinaya bogaadintaydu waa SRTV iyada bulshada hagta baahinaysana tartankan runna ugu bishaaraysa beenna uma sheegto balaan wax idinka codsado wax kastaba waan taabtay ii hiili waan baasi rabitaankaygu waa haa xaq baad halkan ku joogtaane waa inagan idiin bognay ها وأدبد ونكسنت هاي لكن أديك ما تقدمين وحويان مركز مدحويناي فهمتي يو إذا عدي سوق تو وين قبيقة حتى ضدنا الصوت تشطيه قبيقة جوا دلقاف وتفهم سومها مركز وحويان أنا جو حقي جوا ميا إن chance كلنا كوسينا يا هدي قبيقة لا أدهي سيتي إن وكا waa maya kolley maansadu waxay leedahay weji gaaray leedahay waana la wada garanayaa deelqaafkaas haddii aad hayso xirfad kalood uga gudubto waad ku socon kartaa laakiin may hadda tan maansadu waa inay lahaato ujeedo bilaabmaysa kow ka bilaabmaysa oo dad baad wax u sheegaysaa maogtahay waa inay waxaad u sheegaysa oo cadyahay haddana godkeedu mar 3 libay noqonaysaa mar 2 libay noqonaysaa saad wax u waday haddana ujeeddo cadoo ay ka hadlayso oo muuqatayman jirin dilqaafna ku jiray marka ana xaggayga soo dadaal baan ku odhan lahaa barnaamijyada waqtiyada kale inaad usoo diyaar garowto haddana waa maya aad baa u mahadsan tahay barnaamijyada kale ayaan ku rajaynaynaa halkan gud ka gudbi waaye maaha inuu dabcan wax walba u garanayn balse waxaa loo baahan yahay in isku day badan dabcan uu soo sameeyo halkan laftigeeda inaad soo gaadho laftigeeda waa fursad waa isku day marka insha allah dhalinyarada dabcan moraalkooga dabcan ilaaliyaan idin leeyahay insha allah isbuuca dambana waad ka soo qayb geli doontaa waan ku rajaynayaa markan dhinaca heesaha ayaan u yeeri doonaa markan cabdi maxamed ayaan soo dhaweynayaa markan hala soo dhaweey wiilkaa sacab iyo muraha lagu soo dhaweey andamac jacayl dad israba warkood ka daadajiyey waxay ugu darayd markii aan dulimid tan dunida rabay iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo
sawraaxadda macdayo durbaa garayski furaatayo sii daysay timi anis idhi madaysa mise waa dugsiisaa nimnaha maysa saartaan yaa doqon heli jiraayey dadow maxaad ku taliseen dadow maxaad ku taliseen andadiyo maal deeqaha ilaahay ka daadajeeye waxaan daynayn dumar iyo dhibtood oo ilaa durkeeye wuxuu sida daruuraha sagal waa u daalacay wuxuu sida daruuraha sagal waa u daalacay wambid muuqada hablo haddaanan igu dayn lahaa waxbaa igu dirqinaye anis idhi madaysa mise waa dugsiisa cabdi maxamed cabdi waad fiican tahay hadda kolley haddana dadaal inaad samayso hawshu waa kuwa caawa wareegyo badan baa inoo dambeeya haddii la idhaaho ciddii gudubta halka u dambaysa koorska heeska axmed mooga liibaan baa iskale allah u naxariisto inaad xasuusnaato heeskaad qaadaysa abwaanka fnaankii lahaa yaa dooqu heli jira wey yaa doqon heli jira ma yaa dooqu heli jira yaa dooqu heli jira wey waad fiican tahay xaggayga haa okay kolle ridim baa ku dhiman darbuugadda maaragtay taas dadaalkeeda unbaa kaa dhiman laakiin codkaagu waa very funny aad buu wanaagsan yahay waad wanaagsan tahay haaway xaggayga waa okay waad fiican tahay aad baad u fiican tahay laakiin teembada hadhow teembada lagugu qiimeyn doonaa in yar waxaan dareemayaa anigu xagga teembada yar dareemayaa laakiin taa wadamada wixii kaloo dhan ka fiican tahay xaggayga waa haa saasaad ku gudubtay aad u mahadsan yahay wiilkaasi heestaas uu qaaday alla naxariistanaa ka waraabay axmed mooge liibaan iyo heestaas dabcan natiijadiisa uu helay insha allah waxaan rajaynayaa wareegga xiga in codkan oo kale ka macaan hees ka macaan inuu qaadi doono waxaan yeeri doonaa markan dhinaca gabayada maadaama inta badan dhallinyarada gabayga kaga qayb qaadanaysa ay aad u badan yihiin oo dabcan tartamayaasha kale ay ka badan yihiin saas daraaddeed ayaan fursadda iyagana siinaynaa xikaman cumar ayaan soo dhaweynaynaa markan sacab iyo moorarka lagu soo dhaweeyo dhammaantood dhallinyarada ayaa u badan dhinaca gabayada dhallinyaro da'yara oo hadda soo kacayso marka soo dhawow magacaaga iyo xaafadaad ka socotid magacaygu waa xikam cumar sheekh xasan anu waxaan ka imiday maamulka magaalada qabri baax marka waxaan ku tartamayaa dhanka maansada anigoo doonaya inaan ku tartamo si ka duwan sida ay dadku ugu tartamayaan sida inaan isticmaalo hal xaraf waxaan doonayaa inaan isticmaalo hal xaraf halkaa xarafan ka sameeyo ilaa 4 maanso 4 maanso oo qaafiyadoodu uu hal xaraf yahay for example waxaan isticmaalayaa xarafka da 4 maansan markaa ka tirinayaa yacni intaan ku erey aan ka samayn kara hadal intee aan ka samayn karaa baan ka wadaa marka maansada koowaad waa 4 mawduuc midda koowaad waxa weeye dumarkay ka hadlaysaa waxay tidhaahdaa deegaanada adduunyada aas-aaska aadmiga duntii nolosheenna iyo dumarku waa darajo sare dabcigiiyo xishoodkiyo deganaan asluubiyo dadnimada hubaasha daa'im baa u dhaliyey damiirkoodu wacana dulmi maba geyaano darajada ilhaamka dulqaad naxariis la iyo damiirka dubaaxda la xijaab looga dhigayo dumar waa maduugaan maxay qalbi duma dhiseen maxay handi halsanaa
dantiya darajada tuseen maxay caqli durugsanaa hoggaaniya xeel badeen maxay geesi ciil dugsaday dadaal iyo hiil badeen muxuu dadka dacal maraa dantiisuna libin dhashaa ninkay dumar gacan qabtaan ninkii dumar ciil badaa ninkii dumar ciil badaa nasiib dhabarkiisa degay ninkii dil la maagay bay dunidu la jahaadaysaay dilkooda ninkuu damiirku farow dagaal iyo dirir diyaar u ahaw dib xasuusta eego dumar waaba hooye kolla waaba deeqiyo nolol darajadeediyo daryeelkii nafteenne degan iyo suleekhiyo kolla waaba ubadkiyo duriyaddii carruurtiyo dhallaankeenna curadood haddaan dumar ammaaniyo duunyada adduun taal dumar aan la dabagalo xaqoodii ma deen gudin duco aan duugoobayn debintii caqligu yidhi daa'imhaye ajiibe aamiintay dhaha duca waa maduugaane daa'ima wallahayow ducadayday ajiib dayraan dumayniyo waa damal har weyno dadku wada harsanaye allow dumarka noo daa dirdiraaga nacabkee dadka kala fogeeyo dulligeenna taaqada allow dacal idinka mari duni nabad ku joogo darajiya martabad sare adduun sharaf ku naalo aakhirana dacdiroon daarusalaam dabaasho jannadii firdowsiyo naciimana durduurto dembigiina la dhaaf taas waa midda koowaad maadaama aan lay ogolayn wax ka sii badan laba talabaadna waxaan ka dhigi maanse yaroo jacayl oo isla halkaa xarafuna wadaa dareen naxariis labuu jacaylku ku doogsadaa qalbiyaan daacadiisu ahayn jacayl uu ku dabargo'a adoo dakhar muujinayo adoo niyaddayda dila adoon dawo caashaqiyo daryeelkiisaba aqoon diraac lagu durduurtiyo degal lagu nagaadiyo aday naftu doogu moodi anoon dakhar beer lahayn anoon kolle diid lahayn daryeelkaagana ku hawlan diraac lagu durduurtiyo degal lagu anoon dakhar beer lahayn anoon kolle diid lahayn adaa dhabarkayga dooxay dookhiga kaa galaa dunida igu ciilayo adooni danaynahayn dareenkaagunay diiday maxaan kuu dibadgaloobay dibnaha been lama baree duraad sawtaada tidhi intaan duni saaranahay daryaal baan kuu fidini dushaan kugu sidanayaa danaysatay maanta oo daruur kuu hoortay iyo diraac baa kuu daadee ninkii doogaa kolley kol wuu dacranayaa dareen dhoofo aan jirin walaal dookhaaga lumay dad baad iga doorbido da'da iga dabagashee nafyahan dalandool ku dilay kashoon laba deeqi karin qalbigan kolba dacallali hadday damqashadii ka guurtay dulmiga bashar baan jeclayne dulqaad daa'imuu siiyey tii hore haddaan qiimeeyo mawduuca aad ka hadlaysay iyo dumarka wanaagga ay leeyihiin iyo saad ugu ammaanaysay wax fiican laakiin deelqaaf ayaa ka buuxay deelqaaf fara badan oo qaafiyaddii da'ad ahayd ka baxsan deelqaafka maad garanaysaa iminka meeshii aad ka bilowday maansadii hore ka bilow ereygii ku xigayba wuxuu ahaa deelqaaf meelo badan oo saasoo kalena ay soo oo deelqaafiyay ku jireen laakiin sideeda kale ujeeddada ay maansadu ka hadlaysay waa wax fiican bay ahayd iyo sida dumarka u ammaanaysay iyo wanaagga ay leeyihiin anigu waan ka helay deelqaafka faraha badan ay ku jireen mooyaane haddaad taa iska saxdo oo qaabka ay maansadu u dhacaysana aad toosiso waad fiicnaanaysaa baan aaminsanahay xaggayga u ahaa aad baad u fiican tahay sidaa uu soo sheegay xirsi waxa weeye deelqaaf marka lagu yidhaaho waa laba xaraf oon islahayn oon isxambaaran karin balse laakiin dadaal samee wareegyo badan baa kugu dambeeya insha allahu markaa haa caawa ها aad baad wanaagsan tahay laakiin aniga hadda adigoo da ku socdo xijaab looga dhigay ayaa soo gashay ee soo ma yaa deel qafkaas ka soo sax mawduucna waa lagu diri doonaa mawduucaas ka soo sameyn doontaa yaa wad faham soo ma aniga xaggaygu ahaa waa mahadsantiin dhammaantiin insha allah ana waan sii dadaaliyo dhiirigelin bay tahay markan waxaan u yeeri doonaa dhalinyarada dhinaca qoobka ciyaarka tiimkii labaad ama kooxdii labaad ayaan soo dhaweynaynaa markan waxoogaa indhaha ayaan arkayaa oo xaggaasu badan kooxda uu hogaaminaya farxaan yuusuf ayaan soo dhaweynaynaa markan Quem te mandou parar? Tá parado por quê?
que te mando para. fiican soo bandhigteen aad baad iska soo diyaarsay malmalin ani xaggayga waa haawayaan waad fiicantiin laakiin in yar baan idin odhan anigu xagga macnaha dhaqaaqa madaxa iyo lugaha labadaba kolley waad dareemi karaysin idinkuba qaybta dhiman buuxiya idinku haa laakiin wixii idinka dhiman buuxiya idinku anagu meel sibidha ku samaynaa laakiin xagga waa marmar markaa dadaal sameeya dadaal waad fiicantiin laakiin aad baad u fiicantiin wixii idinka dhiman waad garanaysiin haa baad ilaahay okay anna waa haawe teembada sidaad lugta ugu dhufateen dhulka maaragtay iyo ridimka isla socday waan la yaabay okay baatiin ya waxaan markan u yeeraynaa dhinaca heesaha ayaan ku noqon doonaa safiya axmed ayaan markan soo dhaweyn doonaa oo ka mid ah hablaha ka qayb qaadanaya barnaamijka hibe iyo hal abuur ee wakaaladda warbaahinta ee deegaanka soomaalida safiyaha la soo dhawey sacabi moraal barnaamijka hibe iyo hal abuur waa barnaamij loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhallinyarada hal abuur kale cid walba oo xirfad ama farsamo gaara leh ee dabcan in lagu dhiirigeliyo weeyaan markan safiya ayaan soo dhaweynaynaa safiya soo dhawow magacaagoo saddexan heestaad ku tartamaysid iyo xaafadaad ku socotid iyo si guudba barnaamijkan saad u aragtid asalaamu calaykum magacaygu waa safa axmed maxamed heestan ku tartamaynaa khadra cumar dhuule iskale waxaan ka socdaa qabla lixaad dood kulama wadi karo dood kulama wadi karo daacad baan ahayo dadkaygaan dhex jooge dulmi badigu haysay dambi badiga qaade dookhayga doqonkii ka doortay dunide hadba imaad
dariishidii maxaan kugu daalaa dacwo kaama dooni duurkaad igu daysay dacwo kaama dooni duurkaad igu daysay dugaaga la darisahay aad baad u fiican tahay aniga xaggayga yani cod iyo ridim la socod iyo maaragtay aad baad u wanaagsan tahay xaggaygu ahaa safiya waad fiican tahay dadaal samee weliba aad baad u fiican tahay safiya aad bay fiican tahay oo yar baqaysaa mooyaane cabsida hadday iska saartan inay kasii fiicnaan lahayd baan aaminsanahay cod buuxa ayaad ku gudubtay dadaal soo samee maasantiin